nin agoon ku xaday qalin heesta waa hees aad iyo aad u muruga ah cumar shoole ha loo geeyo caawa ha dhegaysto rag baqoomame iyo ciil nin agoon ku xaday qalin qaaxa kama maqnaanto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برنامج كيان عاوحة وكساب سنة هاي نينك اللو يقانو عمر شولي مجي لو قرن أوجي هاي هانا أبو كر والالكيد مجي عيسى أفقر الشدنا هاي عمر أبو بكر قاضوا ذا قرن السان أيا وحا أو بريهن بالله بحي قاب مركو جيبك كسب بحي شغلاني كل عضي عمر ما أنت وما بحنا إنا شرحات بدل إذن سيء عمر محمد بك قاعد جالس جوجل عمر وحا أوجي ريكورد دنبيده ee wadanka Mareykanka waa shakhsiga kaliya ee gobolka Minnesota 9 felony ay ugu jiraan rekoorka garoos Mr. Miner isaga waa shaati iyo surwaal iyo nix buu yahay 30 iyo 50 iyo kor bay u dhaafay dambi wadanka Mareykanka laga galo Umar Shooli naf baan goyni laakiin wax kasta uu sameeyay ilma yar buu gaday ilma yar buu fuulay dukaan uu xaday masaajidu kaba ka soo qaaday wall green barafuuna ka xaday wax yaani bila aami dambi sameeyo bangiyo xaday bila aami dambi sameeyo oo aanu ninkaas galin ma jirto muddo ayaa wuxuu ku jiraa hadda xabsiga waxaana haystay laanta socdaalka ee wadanka Mareykanka hay'adda ICE baa qabatay oo xaraysay hadda markuu soo baxay waxyaalaha cajiibka ah aan caawa rabo inaan idin la wadaago waxa kamid ah waxyaalo yaani qofku marka aanu xishoonaynin wax walba bulshadu la hor yimaada waxa jirta in dadka Soomaaliyeed sideedaba qofku markuu gaajoonayo marxaatina ma galo qofka joonaya marxaatina ma galo garna looma dhiibto iska dhaaf qofka joonaya oo dambiina ah oo rigarkii ka xumaaday qofku markuu gaajoonayo marxaatina ma gali kara garna looma dhiibin karo because qofkii markaa wax u dhiiba buu garta siinaya qofkii markaa wax u dhiiba buu marxaati furaya Umar bariyahan dambe waxa uu la soo baxay dhaqan ah inuu yiraahdo hooyooyinka Soomaaliyeed uu kaga urursado lacag agoonta ayaan caawinaya samafal isku bedelay waxyaab laban in tusay maanta waxaad aad ula yaabi doontaan ayaan rabaa inaan idin tuso oo idin la wadaago okay waxa dhacday maalin dhaweyd wiil yar oo agoon ah oo jooga Muqdisho والله وهبين جمعة كلمة بين إنا نيشيء أيوه وحول سوق لي سناب كا وحول كورور صدي العق ويلكي حتى عدكي سوق لي وحي قاعد العقتي إنه صاغ عياره ويلكي تلفون كيشولز باك كيشولز باك أيه وقالوا كيشولز باك يا كيشولز باك مع الله شدك فيها كيشولز باك كيشولز باك يا ماما ياوا يا ادوي وتلعبوا على غرام كيشولز باك لعك انا دي فاهمه يا ويل يرى مسكينه oo agoon ah oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu Snapchat-ka wuxuu ku urursaday iyo Facebook uu kaga urursaday lacag aad iyo aad u badan wiilkii wuxuu ku yiri lacag baan ku soo dirayaa marxaati waa joogan gabdhihii Soomaali war eega yaani anigu markaan wax idin sheegayo wax been qof daawanayo oo arintan og seebeen ugu sheegaya gabdhihii businessyada laha karameel bay joogaan oo $200 ka qaaday wiilkii baa wuxuu soo wacay sida roobka والله وبالله والله إن أنا بين دين شيئين قبل كم إذا قبله العتب بحية مركي ويل كيرا صوعي وأوي وده هابرير لعقبات إيس قف كوري وكمان على صو هذا لعقت هذا ترى عمر بان وتصدري وعمر باكوروري لعق بيوروري وإجا قبل واي تلفونك سناب شات وحن كاركو ده استجوا لعقتي كوبا شارية إلهي بان إذا كل شيء
gabadhii intay naxday karmeel bay joogta maanta business bay leedahay bal waatan walaashay waa taagan tahay waana idaawanaysaa waa ku jirtaa waa dadka aadka ii daawadee been haddaan sheegay waxaad tiri cabdixakiin oo been baad sheegaysaa gabadhii intay naxday oo hin ka soo daadatay ayay wiilkii iyadu u dirtay iyadii gabadh kale isku tagay oo isku dardareen 200 bay u direen waa wallaahi oo billaahi oo tallaahi 99 magaca Allah aan ku dhaartay wiilkii wuu ooyay wiilkii snapchat ka daawaday gabadhii uu videoga wiilkii u soo diray waa ka wuu iga qaban layaa snapchatna waa ku jira bal ilaahay baa Kishol is back. Aye. Ogaalada Kishol is back. Yeah, Kishol is back. Nala shedan fiya Kishol is back. Kishol is back. Yeah. Baba, yawa. Yeah. Aduyi wa tanabu ala qadam. Uguna wanaag badan. Aye. Okuwana daadiyo. Aye. Markuu qaado hadalkii. Aye. Aye. meesha uu ka heesayo gabdhihii Soomaaliyeed ee joogay markii kaamarada la damiyiin agoonkaana lacag guraaya waa wada dhiibeen gabdho wax ka naxariis badan waa ogtiin waa wada dhiibeen waa la tagay snapchat wuxuu la soo galay isagoo lacagtiisa isku shubay ilaahay baan idinku dhaarshay shakhsiga noocaasa marxaati Soomaali maxameday waxa marxaati iiga ahayde ilma ajakis isagoo wicin on u tacsiyaynin on oranin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ayuu yiri lacag baan u guraya $2,850 ayaan marxaati ka ahay maalinta qiyaame oo gabdhihii wada bixiyay oo dhan mid waliba igu dhaaratay mid kaash dhiibtay iyo mid itustayba saaka waxa ku soo biiray $2,850 wiilal iyaguna $20 mar bixiyay oo markii la isku daray lacagta aqoontaas uu ku urursaday $3,000 ayay ahayd waxaan layka soo galiyay oo marxaad ka ahaydeen ilma ajakis eedadood aabahood la dhalatay oo tiri nama soo wicin miidiyahan waxaan ka arkanaa inuu lacag nagu gurtay xitaa nuumausan tacsiyaynin xataa nuumausan soo tacsiyaynin markii qayladii isqabsatay uu isiri waad ceeboobaysaa ayuu shalay waxa uu tagay xawaalada taaj waxa uuna soo dhigay $500 ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliyeed $3,000 buu wallaahi oo billaahi oo tallahi ninkaas ciyaalka ku qaatay $500 waa diray shantana muusan direene waa isqabsatay media isqabsada qayla dhaan baa baxday ummadda Soomaaliyeed gobolka Minnesota kama dambays waxaan rabaa inaan idin la wadaaga caawa Umar waa soo jeestay Umar Abu Bakar baan u bixiyay anigu waxaan ugu bixiyay Umar Abu Bakar Haana Abu Bakar walaalkeed sababtaan ugu bixiyay waxa ay tahay Haana Abu Bakar ayaa waxay lahayd dhaqan ah inay soo geliso qof ooyaya tani waa taariikh dadka Soomaaliyeed maanta meesha ku jira badidoodu ay daawanayaan waa ogyihiin markay qofkii soo galiso ayaa qof dadkii way naxaya khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed way naxaan markay arkaan qof aad iyo aad u baahan qolooyinka qurbaha jooga markay soo galiso ayaa dadkii waxay dhahayaan walaalay reerka nasiin lambarkooda aan u dirne no bay dhahaysaa aniga igu soo qora nambarkayga ku soo qora Umar Shooli waxa uu gaaray in Soomaali Hargeysa joogta uu yiraahdo lambarkayga ku soo qora Minneapolis igu soo dira lambarka ilma jigsimayda siinaa halkaas u gaar magaca marka aan ugu bixiyay Haana Abu Bakar walaalkeed yaani dhaqankii Haana Abu Bakar ayuu qaatay ninka wuu fariistay markuu soo baxay TV-yadu fiiriyay newsyadu arkay wuxuu arkay Haana Abu Bakar doon baa la degtay Soomaa khadkii bay ka baxday Umar Abu Bakar baa ka soo baxay Minneapolis ma laga yeelayaa
عمر أبو بكر من لقى يلا يا إنه وحنا صبيه ماي وكسو تجي سما فل اسكو بدل وكسو تجي ويك بعدي محوكو ده انتو كوسا فريس كرير كان سميرا دك بار وحوكو ده دك بار كرير كرير كو كحمادي ايا كرير كو هغاجينايا يا وايو قفكو والن سوشيال سكيورتي اي ديس كو ديباي حتى شرعيga جوجل غريا او فيريا قفكو هدو فلن يحي ما كشقين كرو meelaha qofka dokumentigiisa sida social security ay dhig iyo la dhiga kama shaqayn karo maba ka shaqayn karo waaba mamnuuc qofka haduu falan yahay oo xabs ka soo baxay maba lagu aamin karo waxa soo kale ma walaalaha qofka Soomaaliyeed ee Umar Sholi ay dhigiisa Umar Sholi ay dhigiisa iyo social security u dhibay oranay Umar oo hadda ka horba waxa la yiri baalki waraabaha la oran jiray anigu maalintii wiir waxbaan guraya waa qosla waraaba wuxuu yimi habar dugaag markuu u yimi yaa wuxuu yiri maanta habar dugaagay waxaan idin ka rabaa nimayo magacani waa dhiba okay maxamed ana ku soo qori doona ninkaas maxamed axmed la yiraahdo lambarkayga u qora wuxuu yiri habar dugaagay magacani waa dhibay waraabe la yiraahdo war walaalayaal waxaan idinka codsanay inaad magaciiga bedeshaan markaas la yiri maxaan ku bixinaa markaas wuxuu yiri aamini bixiy habar dugaag waa iswada eegan waa qosqosle xayla warheed aha maxay yeelaa tala waa inagu cadahay ninkii waraabe aha wuxuu yiri aamini bixiy waa ay habale waa u bixinana laakiin shuruud baan kugu xidhnaa leeyahay waraabo maxay tahay biyo shuruudu waxa la sharcasho ayaanu ku qabanana riya hayna ayaa loo dhibay riyahana lagaaga tagaya riyaha bal si hay maalin walbana waa ku soo jeegaraynanaayo waxaan dhahnaa wareedaha hadii waraaba uu shanta casho kaga soo baxo aaminnimadii taa magaca u bixinana waana lagu caanshoya magaci waraaba laga bedel lahaa maalintii koowad habar dugaago socotay aamino waa yimaadeen arigiiba wada eegan waa nabad qabaan waa ka tageen maalintii labaad bay soo noqdeen aamino wa arigii waa fiirey waa ka tageen iyagoo sacbir iyo faraxsan bay tageen maalintii saddexaad bay soo noqdeen aamino arigiiba yimaadeen waa wada eegan waa nabad qabaa maalintii afraad maxaa dhici doona waa soo noqdeen habar dugaago oo lahas aamino waa fiiriyeen waa shantii casho maalin baa ka hadhay waa jaabeen waxay bas habar dugaag go'aan bay gaareen waxay yiraahdeen maanta afar bari baa u dhamaaday barinta weeyaan shantii ninka ha lagu caana shubo waraabe aaminna ha loo bixiyo okay bay yiraahdeen habar dugaag waa la isku raacay maalintii shanaad baa leeyahay aamino iyaga sacbinay oo habar dugaag oo dhan wada socdaan leeyahay maanta ninkan ha lagu caana shubo magaca waraabe dhibsaday ha laga bedelo waa la yiri ilaa waa nin damage geystay midoo candhada goostay iyo midoo dhinaca goostay arigii waa wada dhan yahay laakiin waxa loo yimi mid candhada go'an mid dhinac go'an intuu lugeeyay caraado lugti ka tirqsiyo wuxuu maxay ku nuugtaa maxay ka nuugtaa dhaga halkiiba magaci aamin habar dugaag ay kala noqdeen ma waraaba dhooma ku rara waraabe aamin ka dhigo anigu waa qosla sheekadii waraaban soo xusuusay markaan arkay Umar Shooli oo ku dhahay sadaqan ururinaya waa ka soo booday wuxuu ku ilaahay kariir baan sameynaya waxa inoo soo socoto hadaba reer Minnesota Umar Shooli inuu yiraahdo iimaan baan hu meel soo kiraysto uu mangarafoona ku soo xidho uu sadaq yiraahdo taasa soo socoto waana sugi doonaa hooyooyinka Soomaaliyeed gobolka Minnesota ganacsatada degan laba arrimood baan caawin ka waanilayaa mid waa mid hooyo Soomaaliyeed oo ku aamini karta ay dhiigeeda iyo social security-keeda Umar Shooli ma jiro waa qof ka kaliya ee sagaal falan haysta number 1 talabaad hooyo dambe oo Soomaaliyeed oo ninka saaqidkaas aad aragtaan lacag kaash aad ugu diri kartaa ma jirto tii wax la baxasa ee agoon wax u sadaqadaysanaysa ilaahay baan idinku dhaashay qofna qof ugu qorin agoontaad aragtaan shaashada ka aragtaan WhatsApp inta ku wacdan fiidooga furdhaha ciyaalka daawada xawaalada taga dhac u dira intaas kaliya saasa ku faa'iideysan
soomaaliya ninkan ha la iska ilaaliyo hadda sheekadii kireedka waa soo fashilantay sheekadii agoon baan caawinaya waa soo fashilantay cumar oo masaajid soo kiraysa meel soo kirayso magarafoon ku xidhxidho sadaqu dhe wax kale ma soo wadida ha la iska ilaaliyo ninkaas barnaamijku waa ka baxaya waxaan ku soo gabagabeynayaa heestii qiirada lahayd ee xoolaha agoonta qofkii cuna lagu la hadlayay subhanaka ya cadiim buu yiri wa min aayaati cumar shuluqow doo lagu haayaa saaxiib mana laga dagaayo daata heesa ila dhageysta qofkan aan lambarkayga u qorayaa suga okay 61298700074 saaxiib waa kuu soo qoray okay markaan ka baxo meesha soo عليك هذا يا عمر شولي هالله شيء حتى سكده إنا لقى بحكي كرن حولا قومين والله سكده حتى لقى ما بحيه أنا إنا حداد اسكو دايدا nin agoon ku xaday qalin kama macaashe